بسم الله الرحمن الرحيم. عشر maanta waa definition of people in la define gareeyo oo la qeexo people-ka. insha Allah waxaan kusoo koobi doonaa oo keliya cashirkan people-ku iyo waxa uu yahay. people-ku waa maxay? ugu horeyn af Soomaaliga people waxaa lagu yiraahdaa wiil. qofkii eray kale u yaqaano waxaan jeclaan lahayn inuu commentiyada igu soo sheego ama emailkii igu soo diro. laakiin research-gan suubi ilaa hadda waxaan ogaaday erayga people in af Soomaaligiisu uu noqonayo wiil. marka waa maxay people? ugu horeyn horta people-ku ma ahan dhisme structure waa god hole. meenihiisa waxaan ka wadaa dad badanaa isu qalda oo u maleeya in people-ku uu yahay meelaha dhisme ka mid ah dhismayaasha ay ishu ka kooban tahay, laakiinse waa cagsigeedo waa god, waa hole. aan tusaale yar idin siiyo. tusaale, meeshaan laba sawiraa kaaga muuqda, mid god sida ceel oo kala iyo mid god uu dooli ka soo jeedo ama jiir mid aad u taqaaniinba. godka waxaa mar walba qaab dhismeedka uu yeelanayo qeexa dhismaha ama structure-ka English aan ku wareegsan ayaa mar walba qeexa godkaas. tusaale, godka sawirka ceelka dhinaciisa waxaa qaab dhismeedkiisa suubinayo dhulka ku wareegsan. meesha midda uu dooliga ama jiirku ka soo jeedo qaab dhismeedkiisu uu qeexayo geedka. marka hoolka geedka ku dhex yaalo waxaa qeexayo geedka ku wareegsanaa suubinayo godkaas. marka haddaba people-ka maadaama aan dhahno waa hool, waa god, waa maxay structure-ka qeexaya ama qaab dhismeedkiisa u suubinayo? structure-ka u suubiyo qaab dhismeedkiisa waxaa loo yaqaanaa iris. marka people-ka waxaa qeexa iriska. saa sawirka way uga jeedaan. irisku waa dhismo ku wareegsan people-ka ama wiilka, kaasoo u sabab ah inuu suusamo godkaas. haddaba maadaama aan sheegnay inuu hool yahay, marka qeexitaankiisu marka aan rabno inaan qeexno eraya ahaan muxuu noqonaa? wuxuu noqonaa wiilku ama people-ku waa god ku yaala isha dhexdiisa oo uu suubiyo dhismaha ku wareegsan, dhismahaasoo loo yaqaano iriska. people-ka iyo functionskiisa iyo pathway-giisa iyo structure-kiisa iyo cudurrada ku dhacay waxaasoo dhan cashirada dambe ayaan ku baran doonaa. cashirkan uun maanta waa keliya muhiimadiisu waxay tahay inaad ogaato people-ku wuxuu yahay oo aadan ku qaldin inuu yahay structure maanta iyo wixii ka dambeeya. waadna mahadsantiin.